madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo waliba uu kulan laga aaday odayaalka dhaqanka koonfur galbeed ee Soomaaliya walibana la kala fukuray kulanka madaxweynaha iyo odayaalka dhaqanka hawlowga xildhibaanada iyo waliba dardargelinta sanalis waafajiyay xildhibaanada iyo waliba dastuurka koonfur galbeed oo koosan inta xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ee Soomaaliya la ka dhigay 95 xildhibaan meelaha tiyoyin 95 mudana qaar ku mid ah odayaalka dhaqanka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa waliba mahadnaqayna madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen samar walba la tashi soo suubay odayaalka dhaqanka waliba dhawaayna xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ee Soomaaliya inta la ka dhigay 95 mudana Malaaqdeer oo Yacquub Ali afayeenka odayaalka dhaqanka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa waliba soo ku warbiyay muhiimadda kulanka iyo laga hadlay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo waliba walaabo ilin ku hadalay odayaalka dhaqanka koonfur galbeed Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Laftagareen gudoomiyihii hore baarlamaanka may shirka weeladana howlka baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya shirkaasna maylka gorfay dhisidii baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya shirkaas dood dheer kadib mayliska afgorday in odayaalka dhaqanka haqiibsadaan qiibsigii yaalin gudbi feeski labaad shalmo geerad 149 qaadana saqaalon shanaha qaadana hala ka dooday saqaalon shantiin la qaado hore warbaahintan ka dhiibni maanta maylaha gorday in odayaalka dhaqanka balaawan qiibsigii lan walba sidii isu hubantiisa handeeri lahayti lama handeeri lahayti saddex handeeri lahayti qaabkaas guud galaana insha Allah taala hadii ilaahay ka raalan noqdo jawigiina ma yahay jawi eedan qiimo badan oo la iska afgaraday walba madaxweynahana may fokolataan siiyay odayaalka dhaqanka in baarlamaanka iyo anqaraw dastuurka si sharci ah in iyo xawlaan marana qiibsadaan hadii arrimahaasi oo dhan yaa la iska afgaraday ilaahay idin sheemay kala والله هسكاف قردي جماعة يعني إني هون هسكن نقد دون إن شاء الله تعالى. أحمد إبراهيم بوله تلفزيون كيو راديو دولة قولات وكونفور قلب الصومالية مقالة بيدبو.